waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo waxbaa la qabsaday waxbaa meel laga qabsaday wararka kuteerada meelaha dadka ay ka wadaan luuq inay luuq tahay luuq Jubbaland tahay gudoomiye daahir sidiisa yahay kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan idinku haynana waxaa kamid ah Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo ciidamadii ugu badnayd ku daabulay degmada Luuq ee gobolka Gado iyo xiisad halkaasi ka taagan Cabdirashiid Janan oo ku sugan degmada Beled Xaawo ayaa fariin adag waxa uu diray dalalka dariska ah isagoo sheegay in faragelinta Soomaaliya ay ku hayaan loo baahan yahay in ay joojiyaan haddii kale ay ka qaadi doonaan talaabo adag qodobada kale oo aan idinku hayno barnaamijka wararka Soomaaliyana waxaa kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo ay weheliyaan qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa mudaharaad ka dhan ah dawladda ku qabtay xarunta xisbiga Himilo Qaran qodobadaasi qodobo kale xiiso leh ayaan idinku haynaa barnaamijka xulka wararka oo inta badan ka daawataan Wama TV madaxweyne ku-xigeenka dawladda Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa waxa uu diyaarinayaa ciidamadii ugu badnaa kuwaasi oo gaaraya saacadaha soo socda degmada Luuq ee gobolka Gado degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa shalay waxaa tagay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaasatan qaybta 43aad iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen saraakiil kale hase ahaatee arintaasi oo Jubbaland ay ka carootay ama tallaabadaasi oo Jubbaland ay si weyn uga carootay ayaa waxa ay dhalisay in madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo waliba saraakiil kale oo dhinaca amniga ah ay diyaariyaan ciidamo kala duwan waxaana la sheegayaa in saacadaha soo socda ay ku wajahan yihiin degmada Luuq ee gobolka Gado halkaasi oo ay gaari doonaan lama oga xaaladdu sida ay noqon doonto hase ahaatee waxaa la sheegayaa in Jubbaland ay ku jirto diyaar garow culus oo ay ku difaacanayso in aysan gacanteeda ka bixin degmada Luuq ee gobolka Gado degmada Doolow iyo degmada Ceelwaaq saddexdaas degmo oo ay kaga sugan tahay gobolka Gado dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa isku dayeysay maalmihii ugu dambeysay sidii ay Jubbaland gacanteeda uga saari lahayd degmooyinka ay gacanta ku hayso hase ahaatee arintaasi ayaa waxa ay xiisad ka abuurtay gobolka Gado iyadoo Jubbaland xafiiska waxaan fadhinaa maamulka degmada adduunka waxa la yiraahdaa si xun waran sixir ka daran dadku waa loo kala sheeko xumeeyaa miidiya beenaha carrada iska socdo oo meel waa la kala qabsaday iyo meel hadlaasaan ahayd iyo la iska leeyahay halkan waxaa ku sugan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya ee qaybahooda kala duwanaa waxaa ku sugan maamulka dawlad goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyay gudoomiyihii barasaabkii wada shaqeynaa ka dhaxaysa laamaha amniga qaybahooda kala duwan haday nabad sugu tahay haday biliis tahay haday military tahay intaba maamulka shaqo ka dhaxaysa kaliya ma aha gobolka Gado iyo gaar ahaan Luuq kaliya ma aha Kismaayo waa la wada joogaa taliyihii waxaan ku raaddaa saraakiisha qaybtan ka tirsaneed oo dhan ay joogto arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo maalmo un ka hor ay soo gaareen gobolka Gado taliyaha dowladda federaalka Soomaaliya ay u magacawday amniga gobolka Gado oo loo yaqaano Cabdirashiid Janan kaasi oo hore u ahaa wasiirkii amniga ee Jubbaland iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo halkaasi gaaray Cabdirashiid Janan ayaa fariin adag u diray dowladaha dariska ah qaasatan dowladda Itoobiya wuxuuna sheegay in ay faragelin qaawan ay ku hayso gobolka Gado loona baahan yahay in aysan faragelinin arrimaha Soomaaliya maadaama ay tahay dal daris ah oo xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo Soomaaliya Luuq yaa joogay Luuq waxa joogay ciidamo Itoobiyaan ah oo ciidamihii duruufta ay soo gelisay dalkanaga oo argagixisada iyo xaaladda jirtay oo ciidankii koowaad oo Luuq maalinkan qabanay nala socday baa wali sida u degan ciidan in uu la bedelo ma ahane goobihii ay degan waxay la nool yihiin waxay og yihiin ciidankaas meeshaas degan dalka ay joogaan inuu dal Soomaaliya la yiraahdo magaalo Luuq la yiraahdo gobolka Gado ku taalo inay tahay ciidanka la joogana waxay og yihiin dalkoodii magaalo ku taalo oo Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliya oo Luuq la yiraahdo dalkoodii ku taalo inay joogaan iskana kaashanayaan cadow jiro oo argagixiso ah oo dawladda Itoobiya ka mid tahay dawladaha kale oo dalka Soomaaliya jooga oo xaaladii dalkii dawlad soo celintiisii iyo argagixisada la dirarkii u joogay Luuq waxa naga joogay ciidan waxa ka dhacay Luuq dagaal qabiilo ciidamadii joogay waa kala qaybsameen waxay ku milmeen dagaalkii sokoye meesha ka jiray wuxuu sheegay in tallaabooyinka qaldan ee ay qaadayaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Gado ay tahay mid aan loo dulqaadanaynin dowladda federaalka Soomaaliya
ay ka qaadi doonto tallaabo haddii ay ku sii jiraan waxyaabaha ay wadaan.